وعنا wanaagsan idil ahaantiin baddaawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo waliba barnaamijkii ma dhaafaan oo toddobaadkiiba aad hal mar ka daawataan shaashadaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland habeenkan caawana daawadayaal waxaan barnaamijkan isaga ku soo qaadan doonaa dhacdooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay wadanka gudihiisa toddobaadkan aynu ku guda jirnay ama toddobaadkan isagu si galbanaya habeenkan caawa daawadayaal xubnahan ku soo qaadan doono barnaamijka ayaa waxa kamid noqon doona madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo isna xariga ka jaray dhismayaal cusub iyo waliba mashaariic lagu soo kordhiyay wasaaradda beeraha ee Soomaaliland waxa kaloon daawadayaal ku soo qaadan doona barnaamijkan isaga ah wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ka hadlay heshiis ay dhawaan magaalada Muqdisho ku wada galeen UN-ka iyo waliba wadankaasi Soomaaliya xubnahaas iyo xubno kale doora ayaan daawadayaal ku soo qaadan doonaa habeenkan caawa intaan ku guda jirno barnaamijka ma dhaafaan ee ku soo dhawaada bal haddii aan soo qabto daawadayaal xubinta ugu horeysay barnaamijkeena ma dhaafaan iyo habeenkan caawa ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa isagu dhawaan xariga ka jaray dhismayaal iyo waliba mashaariic cusub oo lagu soo kordhiyay wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba daawadayaal waxaanu jaleeci doonaa xubinta ugu horeysa iyo waliba barnaamijkeena ma dhaafaan iyo waliba xariga jaristaasi madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ee daawasho wacan madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ay xariga ka sharay mashaariic iskugu jira dhismayaal iyo shaybaadho casri oo hay'adda FAO u sameysay wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland xafladaasi oo ka qabsoontay xarunta wasaaradda beeraha waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Faarax Cilmi Geedole mas'uuliyiinta ugu sarsareysa hay'adda FAO ee Geeska Afrika shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda beeraha marti sharaf kala duwan waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Faarax Cilmi Geedole waxa aanu ka warbixiyay dhismayaashan xadhiga laga jaray iyo faa'iidada ay u yeelan doonaan wasaaradda waxaanu intaasi ku daray inuu aad ugu mahad celinayo hay'adda FAO sarkaalka ugu sarreeya iyo shaqaalaheeda Geeska Afrika Master Lafli analaka oo goobjoog ka ahaa xadhiga jarka dhismahani ayaa maalgelisay hay'adda FAO ayaa waxa wasiirku intaasi raaciyay inay hore u guddoonsiiyeen hay'adda FAO 10 cagaf wasaaradda beeraha Soomaaliland isla markaasina ay si joogto u caawiyaan qorshaha wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland mudane Faarax Cilmi Geedole oo madashaasi ka hadlay hadaladiisi waxa kamid ahaa waxaan madaxweyne ii ogolaataa inaan u gudbiyo Luka oo aan siiyo awardkaas insha Allah Master Lafli analika oo ah madaxa Geeska Afrika ee hay'adda FAO oo ka hadlay halkaasi ayaa sheegay in ay wada shaqayn fiican ka dhaxayso hay'adda iyo wasaaradda beeraha isla markaasina uu ku faraxsan yahay mashaariicda maanta xadhiga laga jaray waxaanu intaasi ku daray inay sii wadi doonaan kaalmooyinka ay siiyeen wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland gabagabadii munaasabadani waxa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo ka hadlay xafladaasi ayaa u mahad celiyay hay'adda FAO mashaariicda horumarineed ee hirgelisay Soomaaliland waxaanu tilmaamay xukuumad ahaan ay wada shaqayn fiican iyo xiriir fiican ay leeyihiin maantana ay ka gudoomeen mashaariicda ay ugu deeqeen wasaaradda beeraha ee ka kooban dhismayaasha iyo shaybaadhada waxaanu soo jeediyay mas'uuliyiinta wasaaradda beeraha inay bulshada ugu faa'iideeyaan mashaariicdan lagu soo kordhiyay wasaaradda beeraha wadanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu intaasi kadib madaxweyne ku-xigeenku kormeer ballaaran ku soo gaala bixiyay dhismayaasha kala duwan ay ka kooban tahay wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale gabagabadii madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa bil sharafay guddoonsiiyay madaxa hay'adda FAO ee Geeska Afrika Master Lafli dhismaha waxa ka sii qiimo badan laabka maanta ay keeneen in lagu tajriibinayo ciidii iyo abuurkii oo ay beeraleydu u baahan tahay dayat waxbarashada jaamacadaha u baahan yihiin ay ka faa'iideystaan oo waxyaabaha aad inooga dhaqan lahaa waxaan marka kuwa hambalida kuwa siinayna hay'adda FAO iyo madaxdeeda iyo ifad iyo intuu ka biiriyay wax ka umaada runtii wasaaradda beeraha ku dhowdo hawsha si wanaagsan ogaasimay oo
dhismihii maaragtay loogu talagalay sidii loogu talagalay dabajoogooda ay u dhameeyeen aad iyo aad baan dhammaan ugu mahadnaqaynaynaa. wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan xirsi cali xaaji xasan ayaa isna ka hadlay heshiis dhowaan ku dhex maray magaalada muqdisho UN-ka iyo weliba wadankaasi Soomaaliya waxaanu tilmaamay in aanay Somaliland wax saameyn ah ku yeelan doonin heshiiskaasi. dhanka kale isla toddobaadkan ayaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland waxa uu xarinta qasriga madaxtooyada ku soo bandhigay mootooyin cusub oo markaasi loogu talagalay habmaamuuska madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland kuwaas oo iyagu galbin doona madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland marka uu ku guda jiro hawlihiisa shaqo. haddaba daawadayaal waxaynu eegi doonaa warbixinadaasi iyo weliba xubnahaasi kala duwan ee daawasho wanaagsan. wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland xirsi xaaji cali xasan waxa uu markii ugu horeysay uu sheegay in heshiiska magaalada muqdisho ay ku gaareen dowladda dalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay aan wax saameyn u geysan doonin Soomaaliland. hadal kasta uu jeediyey kadib markii kulan iskugu yimaadeen guddiga u qaabilsan xukuumadda Soomaaliland wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. warbaahinta ayuu wasaaradda arrimaha dibadda horteeda kula hadlay xirsi xaaji cali xasan. wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland waxa uu sheegay in macno aan buurnayn heshiiskaasi uu muujinayo, isagoo sheegay inay khaas u tahay dowladda dalka Soomaaliya balse Somaliland aanay wax saameyn u geysan doonin. isagoo ka hadlaya waxa uu yidhi waxaan filayaa dee taas inaan wax cusub hayno hawada watii laga wada hadlay malaha wixii sidii kala cid wax u dhigto waa meeshii laakiin hawada agreement baa laga gaadhay inaynu hawada Somaliland laga maamulo hawada Somaliland iyo Soomaaliya laga maamulo guddi dhexna loo sameeyo labada daraf ka kooban oo waxa weeye inana aynu leenahay badiyana ay badleeyihiin wixii ka soo baxana equal share loo qaybso saasa heshiiska ku qoran. markii labaadna heshiiskii dambana sidii baa lagu honorgareeyay duniduna kaasay aqbashay. marka waxa weeye de qofkii kale wax kale iska yiraahday isaga yiri anagu heshiiskii Soomaaliya aan wada galay waxa hawada in laga maamulo Hargeysa maamulkeedana sida iyo dhaqaalaheeda loo share gareeyo oo yani loo qaybsado si equal share loo qaybsado hawadii Somaliland iyo Soomaaliya oo aan isku jirin sidaasana saasa loo maamulaya. meesha la yiraahdo wixii heshiisyo lagu galo Muqdisho anagana ma khusayaan anagu dal madax banaan oo u madax banaan resourcekiisa iyo maamulkiisa iyo siyaasadiisa ayaanu nahay. dunidana dawaadiga arkay dunida maamul baa noo timaada waa la dhil gareynaa heshiisyan la galaa qofna ma weydiino cidna fasax uga qaadan mayno wixii danaha yaga iyo dalka yaga cidna fasax uga qaadan mayno. wasiirka madaxtooyada Soomaaliland sidoo kale waxa uu sheegay oo la weydiiyey bal wararka sheegaya in xiriirka u dhaxeeya Nicholas Kay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo xukuumadda Soomaaliland uu yahay mid aad u liita. isagoo warkaasi beeniyay waxaanu yiri wal ma jirto caran noo dhaxaysa Nicholas Kay oo Soomaaliland iyo isaga u dhaxayso gaare kaliya waxay Soomaaliland diiday xafiis Soomaaliya u adeegay inaan Hargeysa laga furin oo Soomaaliya u adeegay inaan Hargeysa laga furin. Soomaaliland taasay diiday. Nicholas Kay waa nin qaabilsan jamciyadda qormaha ka dhaxaysa u qaabilsan arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliyaba wixii macaamilada kale iyo wixii wada shaqo kale ee aan qadiyadda Somaliland waxba yeelayn iyo waxa weeye dalkan yani shuruucdiisa iyo jiritaankiisa waxba yeelayn معاملة إذا سمعنا كل شيء كلا شقينا مشكلتنا. وزيركو سيدو كل واحد وشيء إن كلن كي أي كويشين وزارة داريمة هدي بدأ سومالنا جودي جواد هذا الكسومالنا دي صوماليا وقابل سن حكومة دا سومالنا أي كم إذا هاد كل مدي عادي جها اللي قدر درجلها هي حولها قرن قوة كيشين وحنوري. طبعا ده شقدي إنه روح السعرية هيدينا نكشقينه أسيد يارجرونه وضع هذا الله ده وحس كسي ويدينه أيوم بيقول خصيصه ده شقد day to day هو نور حيسبه هيدا وزيركي خارجه ناقو يارينا إنه يعني ثلاثة يصير ورسانه أنا يعني إسوريسانه ضدك كله غير سومال لانه أما هنقدر نسيب سوسايتي أما نقدر نسيدا يمكن لنيرد شوكتا أكوار كيسان أن وحي ثلاثة تسمع هيان لا شرقرينه ويدينه وريسانه كدينا ناقو أن ده طلابه ناقو ديارسان أنو تجنا وضع هذا إن شاء الله تعالى. munaasabadan kooban oo lagu qabtay xarunta qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa ahayd mid lagu shaacinayay gaadiid cusub oo mootooyin ahna qaar loogu talagalay inay gaar u noqdaan madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo isla markaana lagu soo kordhiyay gaadiidkii u khaaska madaxweynaha mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan wasiirka madaxtooyada ee
jamhuuriyadda somalilan oo ka hadlay gaadiidkaasi mootooyinka ee u gaarka madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda uu hogaamiyey madaxweyne axmed siilaanyo ay ka go-an tahay horumarinta wadanka qaybihiisa kala duwan. maruu ka hadlay wasiir xirsi mootooyinkaasi iyo muhiimadda ay leeyihin ayaa ku tilmaamay qaar lagu maamuusayo madaxweynaha gaar ahaana waqtiyada uu ku guda jira shaqada qaranka kuwaas u horgeli doona halka ay kuwa kalena dabageli doonaan. ilaahay mahadii weeye. ilaahay subxaana wataala waxaan ku mahadinaynaa in uu inoo suurtageliyey dowladda uu hogaaminaya axmed maxamed xamuud siilaanyo inuu inoo suurtageliyey horumar badan oo dalka ka socda. horumarka ayay tahay dhinacyada kala duwan ee dowladdu ay ku tallaabsatay in mar la dhiso horumarka yani la taaban karo ee waxa weeye infrastructureka iyo wadooyinka iyo dekedaha iyo madaarada iyo waxa weeye guryaha dawladda ama xafiisyada dawladda iyo wasaaradaha iyo waxyaalaha la midka oo wax la taaban karaa. sidoo kale iyada oo ah xagga shuruucda iyo policy procedureska oo dawladdu ay waxa weeye in badan ka qabatay. sidoo kale iyadoo nidaamka iyo protocolka iyo habsami u socodka dawladnimada iyadana gacanta lagu hayo ayay tan qayb ka mid tahay in mootooyinkii maamuuska madaxweynaha waxa weeye hortiisa iyo dabadiisa galayay horiya dabagelayay la soo iibiyay oo ciidamadiina lagu tababarayo oo runtii haday xag nabadgeliyo iyo xag waxa weeye ciidan iyo xag waxa weeye dhismaba tahay aad loo horumariyay ayaan saaka insha Allah taala ku soo bandhigaynaa halkan. waxaana insha Allah taala iyagoo kala ka muuqan doonaan madaxweynaha iyo la socodkiisa iyo habsami u socodka dawladnimo ayaa insha Allah taala ka muuqan doonaan. wasiirka madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa madashaasi uga mahadnaqay cid kasta oo kala shaqaysay hirgelinta mootooyinkaasi waxaana uu xafladda ka sheegay in madaxtooyada Soomaaliland dib u dhis ballaaran lagu sameeyay lana dareemi kara shalay iyo maanta farqiga u dhaxeeya. aad iyo aad ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu mahadinaya intii nagala shaqaysana uga mahad celinaya bulshada Soomaaliland leeyahay waa dawladdeena inuu korinayno maalin bashay ku darayno marka taasaan insha Allah taala ku soo bandhigayna madaxtooyada shalay to sida wakeedii maanta sida u egtahay waa dareemi kartaa farqa u dhaxeeya waana intaas soo looga sii dhawaada hadaynu waxa weeye inagu tacabkeena gelinayo xoogeena iyo maskaxdeena iyo muruqeena gelino kuna kalsoonaano waxaynu gaari doonaa maalin cidna u baahan ilaahay mooyaane. geesta kale mudane xirsi cali xaaji xasan waxa uu ka hadlay saddex ka mid ah shaqaalaha madaxtooyada oo tababar dibadda loo diray si ay u soo bartaan hanaanka dawladnimo. sidoo kale saddexdan dhalinyarada ah oo loo diri doono Europe loo diri doono oo iyagana la soo bari doono tababar oo insha Allah taala ku maqnaan doona muddo 3 wiiga ku maqnaan doona. waxa weeye tababarka insha Allah taala yana waxay soo qaadan doonaan tababarka dawladnimada iyo maamuuska ayay soo qaadan doonaan insha Allah taala. waa dawladnimadeena oo aynu doonayno inaynu korino dhinac walba ka dhameystiro oo ka dhisno haday tahay xagga systemka iyo haday tahay xagga maamuuska iyo nidaamka dawladnimada iyo haday tahay xagga dhaqaalaha iyo horumarka iyo haday tahay waxyaalaha la taaban karo infrastructure ay kamid yihiin waxyaalaha badan ee dawladdu ku talaabsatay. gaadiidkan cusub ayaa wax weyn ka tari doona bilaada iyo habka maamuuska madaxweynaha waqtiyada uu gudanayo howlaha qaran ee loo igmaday. Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa isaguna waxa uu magaalada Columbus ee wadankaasi Mareykanka kulan kula yeeshay jaaliyada Somaliland ee iyagu halkaasi ku dhaqan waxaanu uga warbixiyay waxyaabaha dalka uu qabsoomay iyo waliba wixii uu dalka ku arkay intii uu joogay. haddaba warbixintan ayaa waxaa indheeyay cali caana dhabe oo inoo eegi doona. Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa kulan la yeeshay jaaliyada reer Somaliland ay ku dhaqan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee wadanka Mareykanka. Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa dadweynihii reer Somaliland ka soo qayb galay kulankaasi waxa uu uga taariikhiyay soo martooyinkii nidaamyadii maamul ee u kala dambeeyay Soomaalida sidii iyo habkii ay ku midoobeen Somaliland iyo Soomaaliya sanadkii 1960kii iyo sidii Somaliland hilowgii kalgacalka Soomaalinimo uga dhaxashay burburka oo uu ku tilmaamay in cidii araxda ka jibisay ay ahayd bulshadii koonfurta. Professor Axmed Ismaaciil Samatar waxa uu sheegay inay Somaliland haatan tahay dal jira madax bannaan gobonimadiisana la soo noqday doonayana oo dadkiisu halgan ugu jiraan in ay wax qabsadaan dunidana wax la qaybsadaan. markaan waxaan rabnaa diinta ilaahay la wada siiyey iyo xadaarada Soomaalida iyo afkaarna la siiyey waa khayr waa la wadaagi halka wada shaqeeyo laakiin qarannimo iyo gobonimo iyo isxukum nama sheegi kartaa.
brofesorku waxa uu kulankaasi oo si heersare ah loo soo agaasimay sharax kaga bixiyey socdaalkii uu wakhtiyadii kala dambeeyey ku yimid somalilan isagoo xusay inuu ku soo arkay ummad isku xidhan waxqabsatay nabadgelyo sugan haysata higsina ugu jirta inay horumar la taaban karo hanato isagoo tibaaxay inay haatan u baahan tahay sidii horumarkaasi iyo dadaalkaasi dunida loogu baraarujin lahaa si ay u hanato aqoonsiga ay xaqa u leedahay taasina inooga baahan tahay ayuu yihi brofesor axmed ismaaciil samater in hareeraha la wada qabto waan soo arkay waan soo wareegay waan soo arkay caawa ma wada dhigi karayo waktina uma hayo laakiin in yar baan idiin taabsin oo dibnaha idiin qoy inteeda badanna waad ogtiin laakiin waxay u baahan tahay mid walba in la fahmo oo la xajiyo oo lasii adkeeyo u baahan tahay but here are some achievements which are very impressive oo haddii layna waraysto la yidhaha war Samater waa idin Somaliland tegay bal nooga waran ay walaalahayn idaahaan de waxaasan u dhigi lahaa oo la waa kaas 1 2 3 4 5 idina waad ku dayan kartaan ya sheekada aad yeelanaysaan ummadda iyo madaxda Somaliland waxay noqonaysaa basis bay noqonaysaa because you recognize dadkan waxay qabsadeen very serious fashion ilaa maanta wax dawa ah oo miis la soo dhigayo oo serious ma jiro adduunyada waxaa la gelinayaa annaka ka wakiila waan kala lubanaa marka de wixii xaggaa ku saabsan annaka halan soo mariyo ayaa dooda adduunyada la gaarsiinayana ay tahay aqoonsiguna haddii dadaalkeega la keeno waxyaabaha uu ka jawaabayo waxa weeye inuu adduunyada dadaalka ugu dhajiyo lanagama wakiilaya annaga iska wakiila madaxdii iyo dadweynihii ka qayb galay ee xafladaasi ayaa iyana dhinacooda hadallo ay ka jeediyeen waxay munaasabadaasi uga mahad celiyeen brofesor axmed ismaaciil samater dadaalka uu ugu jiro isku xidhka bulshada iyo kamada dhalinta qadiyadda somalilan wasiirka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Somaliland oo safar shaqo dhawaan ku tagay magaalo madaxda gobolka saaxil ee Berbera waxa uu 60 mishiin amaba motor oo la saaro doonyaha kalluumaysiga ku wareejiyay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga haddaba waxay noo eegi doonaa xubintani wariye Mukhtaar Cabdiraxmaan oo goob joog ahaa wasiirka maaliyadda jamhuuriyadda Somaliland Cabdicasiis Maxamed Samaale ayaa xafiisyada maaliyadda ee magaalada Berbera kadib uu ka soo kicay timay caasimadda Somaliland ee Hargeysa wasiirka ayaa intaasi kadib waxa uu 60 mishiin oo ku walaashada ku wareejiyay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga jamhuuriyadda Somaliland oo hawlo shaqo maalmahanba ku joogay xarunta gobolka saaxil ee Berbera munaasabadii lagu soo dhaweynayay mishiinada shilaashada ee wasaaradda kalluumaysiga jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxay ka dhacday xafiiska maariyaha dekada weyn ee magaalada Berbera iyadoo halkaasi ay hadal ka soo jeediyeen wasiirka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Somaliland wasiirka kalluumaysiga iyo mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera iyo waliba maamulka dekada weyn oo si weyn u soo dhaweeyay qalabkaas cusub ee wasaaradda kalluumaysiga jamhuuriyadda Somaliland ay soo iibsatay wasiirka maaliyadda jamhuuriyadda Somaliland Cabdicasiis Maxamed Samaale oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in qalabkan uu ka mid yahay qalab kala duwan oo loo diray wasaaradaha xukuumadda Somaliland kadib markii ay baahiyahooda u soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Somaliland iyana ay ugu dartay budgetka 2013 waxa uu tilmaamay in qalabkan mid la mid ay ku wareejiyeen wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Somaliland sidoo kalena waxa uu xusay wasiirku inuu soo socdo laashash lagu talagalay ciidamada ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Somaliland iyo dabdamisyo ay leedahay xukuumadda Somaliland haddii ay beelmo ay wasaaradda codsatay kalluumaysigu in loo soo iibiyo budgetka loo galiyay ayuu ahaa waynaanu arki doonaa oo miidiyahu way sawiri doonaan ku dhawaad 60 mishiin iyo qalabka kale wasaaraddu soo iibsatay annaguna aanu lacagta ka bixino budgetkii ay ku jirtay in wixii ummadda aanu u sheegaynay uu dhabeeyahay alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahayna inoo dhabeeyey oo inoo soo baxday taa runtii waa taan maanta wada joogo ayaa socota waxaa ka mid ahayd mashaariicda 2010ka cagafyada iyo buuldowsarada wasaaradda madaxtooyada aanu soo iibinay ee wadooyinka inaynu wax kaga qabana ay noogu talagalay oo arkaysaan iyaguna qiimaha ay leeyihiin iyo intay ku fadhiyaan waa markii koobaad ee Somaliland qalab inta leeg ama ka wadooyinka ha noqoto
ama qalabka beeraha ha noqoto ama kaa kalluumaysiga ama ciidanka ilaalada xeebaha ama debdemis waa markii koobaad qalab intaa leeg runtii somalilan ee la soo iibiyo ilaahay baa subxaana wa tacaala mahadda u celinayna noo suurageliyey oo wixii dee aanu afka ka nidhi noo dhabeeyey waxaana uu tilmaamay inay xukuumadda somalilan ka go-an tahay dhammaystirka baahiyaha kala duwan ee ka jira xafiisyada iyo wasaaradaha kala duwan ee dalkan jamhuuriyadda somalilan isagoo wasiirku xusay inay guud ahaanba ay dhisi doonaan xafiisyada kala duwan ee hay-adaha laamaha dowladda gaar ahaana kuwa ay leedahay wasaaradda maaliyaddu waxaa isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda jamhuuriyadda somalilan cali jaamac faarax buureed ayaa isaguna si weyn usoo dhaweeyey qalabkaasi wasaaradda kalluumaysiga oo ka kooban 60 matoor oo kuwa laashashka iyo doonyaha yaryar la saaro oo dhowr lambar isugu jira 25 15 iyo wax la mid ah iyo waliba qaybo kale qalabka oo yaryar oo kii maaragtay dabaasha iyo kii waxyaabo badan badbaadada iyo qalabyo yar badan oo iyana ku dhex jira aad baanu ugu faraxsannahay runtii taasoo mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera sida gudoomiyaha gobolka saaxil cali maxamed cilmi iyo duqa magaalada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin ayaa iyaguna halkaasi hadallo kala duwan ay ka soo jeediyeen waxay u soo jeediyeen shacabka somalilan inay ku soo dhiiranadaan sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen kheyraadka badda iyo dhinaca kalluunka marayaha dekada berbera injineer cali cumar maxamed cali hoorho oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in xukuumadda somalilan ay ka go-an tahay sidii ay u dhammaystiri lahayd baahiyaha kala duwan iyo adeegyada ay u baahan yihiin xafiisyada laamaha dowladdu waxaana uu xusay in tallaabadan ay ka mid tahay tallaabooyinka horumarka ee xukuumaddu hore u qaaday isla markaana ku tilmaamay mid wax weyn ka tari doona kalluumaystada kala duwan iyo wasaaradda kalluumaysiga jamhuuriyadda somalilan oo baryahanba ku howlanay sidii ay kor ugu qaadi lahayd guud ahaanba adeegyada kala duwan ee ay u baahan yihiin kalluumaystada ka howlgala xeebaha dalkan jamhuuriyadda somalilan geesta kalena daawadayaal isla toddobaadkan waxaa xadhiga laga jaray luuqadda carabiga taas oo lagu soo kordhiyey wararkii kala duwanaa ee telefishanka qaranka taas oo ay xadhiga ka jareen madaxda ugu sareysa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo weliba maareeyaha telefishanka qaranka haddaba daawadayaal waxaynu jaleeci doonaa xubintaasi ee daawasho wanaagsan xafladan oo ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan wasiirka diinta iyo awqaafta wasiiru dowlaha waxbarashada maareeyaha guud ee telefishinka qaranka agaasimaha idaacadda radio hargeysa madaxweyne ku-xigeenkii hore jamhuuriyadda somalilan madaxa maktabadda masaarida iyo dadweyne iyo marti sharaf kale ayaa waxaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay maareeyaha tv-ga qaranka mudane khadar xasan cali gaas oo ugu horreyn ka hadlay faa'iidada iyo waxtarka uu leeyahay barnaamijkan afka carabiga ah ee lagu soo kordhiyey telefishinka qaranka somalilan iyo doorka afka carabiga uu ku leeyahay dalka somalilan marka laga eego inuu yahay luuqadda labaad ee dalka somalilan marka laga eegayo dastuurka qaranka somalilan maareeyaha oo arrintaa ka hadlaya waxauu yidhi farxad weyn noo ah inaad nagala soo qayb gashaan maalintan taariikhiga ah ee aanu daha furayno qaybta carabiga ee telefishinka qaranka oo runtii ay ahayd inay ka horeyso qaybta ingiriisida laakiin sidaasay u dhacday ilaahay mahadi weeyaan kol hadduu ilaahay nagu simay in maanta aynu bilowno luqadda carabiga muddo waxaanu ku soo jirnay muddo ilaa 10 cisho ay tijaabo ku jirtay ma aha waxaanu iska bilowno intaanu habeen soo toosnay nagu soo dhacay laakiin waxa ahayd qorshe sanadkan aan ugu talagalnay oo miisaaniyadda noogu jiray waxaanay ka turjumaysaa siyaasadda xukuumadda luqadda carabidu waxa weeyaan waa luqadda qur'aanka kariim nagama aha uun inaynu carabnimada laakiin waa luqaddii islaamka waana muhiim inaynu dadka islaamka inay luqadda bartaan oo ku dhiiradaan tifiyadeenna iyo warbaahinteennana ay ka muuqato aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta aynu daahfurno maalintan taariikhigaa waxay wax weyn ka tari doontaa xidhiidhka oy soo noolayn doontaa xidhiidhka soo jireenka aynu la lahayn wadamada carabta iyo islaamka labadaba waxaan aada uga mahad celinayaa wasiirka iyaga wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka maaliyadda oo runtii
gacan weyn ka geystay suurtagelinta iyo hirgelinta iyo furitaanka qaybtan carabiga ah muddada uu tijaabadu ku jiray warka carabigu waxaan jecelahay inaan la wadaago in feedback fiican uu nagaga soo noqday wadamada carabta ka yimid waxaan xusi karaa in safiirka jooga masaarida ee jooga Kenya inuu ina soo hambaliyeeyay aadna ugu farxeen in aynu bilowno qayb carabiga waxaan inoo sheegeen iyaga iyo diblomaasiyiinta jaamacadda carabta ee ku sugan Nairobi inay daawadaan warka carabiga ee telefishinka qaranka iyagoo xusay inuu telefishinka af Soomaaliga ku hadla ee kaliya ee luqadda Ingiriisiga iyo Carabida warka ku sheegay uu yahay taasina waxay guul u tahay qarankeena Somaliland waana mid aynu ku faanay dhinaca kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay madaxa maktabadda masaarida ee xarunteedu tahay caasimadani Hargeysa Ibrahim Axmed Ibrahim oo isagu soo dhaweeyay luqadda afka carabiga ee lagu daray telefishinka qaranka Somaliland نحن يسعدني ويشرفني اليوم أن أحتفل معكم بمناسبة افتتاح القسم العربي بالتلفزيون السومالندي. حسنا ما قمتم باستحداث هذا القسم الهام والحيوي الذي يعزز العلاقات بين شعب سومالند والشعوب العربية. وزير الدولة وزارة وحبرشدة جمهورية سوماليلاند ayaa isaguna halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin oo sheegay luqadda carabigu inay asal ahaan iyo dhaqan ahaan aynu xiriir xoog ah leenahay marka laga eego xagga diinta wasiirka diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Khaliil ayaa isaguna aad ugu dheeraaday soo dhawaynta uu soo dhawaanayaan luqadda afka carabiga ee lagu soo daray telefishinka qaranka Soomaaliland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay oo bisha March ay tahay 5 bisha Jumada awal ay tahay 4 oo aynu furnay amba aynu maanta u dahfurayno barnaamijka luqadda carabiga ah oo luqadeena rasmiga ah runtii ahayd waa historian waa luqadda labaad ee qarankeena weeye waxa runtii aan leeyahay siyaasadii wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland intuu hogaaminayay Cabdilaahi Maxamed Daahir waxa uu yahay ninka waqtigiisa ilaa ku beegay inuu furo idaacadda Quraanka Kariimka ودمبينتنا وزيرك وزارة ورفافينتا dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukise ayaa ka hadlay goobtaasi oo soo gunaanaday munaasabadaasi waxaanu yiri in TV-ga qaranku uu yeelanayo laan afka carabiga oo gudbisa luqadda carabiga waxaanu isku dayi doonaa inay marka hore ku koobnaato warka iyo hal barnaamij marka dambana inta awoodeenu wax soo saar ay leekaato ayuu leekaan doonaa ilaa uu ka gaarayo heerkiisa ugu sarreysa bal inay mar uun aynu carabta wax fahamsiinaynu isku dayi doonaa mar uun luqadan markaa diinta islaamka laga yimaado waxay leedahay faa'iido kale oo ah inaynu asal ahaan inaga dhaqankeennu uu carabta inta badan ku xidhan yahay inkastoo aynaan carabta sidaynu ugu xidhannahay waxba uga helin wasiirka wasaaradda warfaafinta isagoo ka hadlaya telefishinka Universal ayaa waxa kale uu yiri mar kalena waan ku celinayaa Universal waxay ka mid tahay cadowga Somaliland Universal maalin kaliya axsaan iyo sharaf inoomay samaynin halkan waxay ka heli jirtay dakhli fara badan lacag fara badan baa ka soo geli jirtay qaar badan oo inaga ah oo reer Somaliland ah oo min daraf ilaa daraf ah lacagtooda ayay weli ku shaqaystaan waanu register garaynaa kuwa Dubai jooga iyo kuwa Nairobi jooga iyo kuwa halkan jooga intaba qaar baa la galay heshiisyo hore oo sanad hore ah heshiisyadii ayaan weli naga dhamaanba warka aanu haynaa uu yahay laakiin qaar sanadka cusub inay heshiisyo la galaan imika aynu February doonayno ay ku jirno isku dayaya baa jira annagu waxaan leenahay ninka muwaadinka ee reer Somaliland ee ay ka dhabtahay ee in yaro damiirkiisu in yar nool yahay Universal you maalgelinin lacagtaada waxaad ku maalgelisaa TV-yada kale ee madaxa bannaan waxa kale oo iyaguna xalfadaasi ka hadlay Xaashim Muuse oo kamid ahaa odayaasha magaalada Hargeysa safiirkii hore Ireland Cabdifataax fanaanada Khadra Daahir iyo madaxa qaybta carabiga ee telefishinka qaranka Somaliland
intaasna daawadayaal waxaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkii madhaafaan oo habeenkan caawa ah intaasi nagaga idil barnaamijkan barnaamij lamida daawadayaal intaan iskugu iman doono kamarada iyo lightinka waxay noo hagaayay sharmaarke habeynta iyo isku dabaridka barnaamijkana waxaa iska lahaa amaba isku dabariday cabdi safwaan anigoo jamaal axmed naasira iyo weliba bahweyntii kale ee barnaamijkan igala qayb qaadatay dhammaantayo dhammaantii waxaanu idinkaga tegaynaa is aragti maqal dambe ka hor assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu